kulankan oo soo qabanqaabiyeen maamulka degmada Xamar Jajab ayna ka soo qayb galeen qaar ka mid ah gudoomiyaasha degmooyinka garyaqaano Soomaaliyeed qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmadaasi ayaa waxa lagu qabtay xarunta maamulka degmada Xamar Jajab ee magaalada Muqdisho. kulanka ayaa looga hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa hidaha iyo dhaqankeena suuban iyo sidii dhalinyarada Soomaaliyeed loogu abuuri lahaa shaqooyin isla markaana qaybaha kala duwan ee bulshada looga dhageysan lahaa aragtidooda ku aadan kor u qaadista dhaqankeena. gudoomiyaha degmada Xamar Jajab Maxamed Cali Axmed oo ugu horeen kulanka ka hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay qodobada ugu muhiimsan ee kulanka looga hadlayo. waxa farxad weyn noo ah dhaqanka looga hadlayo ay ka soo qayb galaan dhalinyaro mataqaanaa odayaal dhaqameedyo hooyooyinka dhammaan ururadii bulshada ururka haweenka gobolka Banaadir mataqaanaa abukaatayaal runtii in badan dibadda ku maqnaa wadanka dib ugu soo laabtay iyo maamulka degmada Xamar Jajab oo iska kaashanaya sidii mataqaanaa bulshadan yani dhaqankii hore ee soo jireenka ahaa ee aan lahaa jirnay Soomaalida cadaan aan lahaa jirnay in dib loo soo celiyo saaki fursad weyn ay noo tahay runtii waxaana dareemaynaa in maadaama aan dhaqankii in dib loo boorka looga jafaan rabno inaan saaka annaga degmahaan aan bilaawno. abukaate raaxo maxamed xasan oo sidoo kale koobta ka hadashay ayaa sheegtay in loo baahan yahay in dhalinyarada Soomaaliyeed loo abuuro shaqooyin. hadalka liinoosan ku ekaan ay ka soo baxaan wax soo saarka muxuu yahay dhalinyaradu dhibaato badan haysato dhaqan xumidan waxa keenaysa dhibaato waalidkii siday walaashay ugu soo dhawaajisay haduuna familka guriga isla wada joogin qof haday ka maqanta waa shantaas furta haday ka maqanta dhibaatada leedahay dhalinyarada maanta loo jeedino waa dhibaatada 23 sano wadanka soo diristay marka hadii aan isku wada tagno oon iskaalmeysano oon wadaadadeyna maxaa la dhahaa odayaasheena haweenkeena kulli aan iskaalmeysano waxaan u haystaa inaan ka gudbi karno xaaladdan. Jawaahir Baarqab gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Banaadir oo ugu dambeyntii halkaasi ka hadashay ayaa sharaxaad ka bixisay ahmiyadda bulshada Soomaaliyeed ee u leedahay inay ilaashadaan dhaqankooda. in doorka dhalinyarada haday noqon lahayd isboorti haday noqon lahayd shaqo abuuris haday noqon lahayd wacyigelin haday noqon lahayd diintii iyo dhaqankii waxa waaye gaalada ah oo aan diin haysanin ayaa ilmahooda dhaqanka ay bartaan diintooda religion oo baranaya diintu baranaya waa diinta Kristaanku baranaa uu ku taqasusaya uu xafidayaa waxbuu ku ixtiraamaya. imagine marka diinteena islaamka ahayd wanaagsanayd ee aan la baranaynin oo ilmuhu ayna jeclayn hadda luqadaha inta badan Ingiriisiga lagu hadlaaba afkayni wuu dhumay dhaqankeena marka saas u baxaa asaguna maxaa loo baahan yahay marka waxa loo baahan yahay in hadda dib loo soo laabto maadaama aan dawlad haysano nidaam aan haysano kala dambeyn ay jirto nagaasho aan haysano adduunyadan qof walba ugu musaafir ka tahay. Maxamed Xasan Cali telefishinka qaranka Soomaaliyeed magaalada Muqdisho.